تاجنهاي إنه حد كي هاي دوح كوحي نعم والله با والله وبالله با والله با والله هل كاسو حدود هيك وحا وأنا دبي بتحكي ما كوكو بالله با ما كوكو تالله با barasaabka gobolka Awdal oo horkacaya guddi kala duwan oo ka kooban ciidanka qaranka Soomaaliland iyo ciidanka booliska oday dhaqameedyada kala duwan ee ka soo jeeda beelaha isku haystay beertaasi ayaa waxay go'aan ka soo saareen in beertaasi oo uu iibiyay Ismaaciil Guuleed Suldaan Samatir uu ka iibiyay Xaaji Maxamed Sheekh Cumar Xaaji Axmed markii markhaatiyaal iyo dhaar intaba la eegay waxa beertaasi iskale mulkiyadeeda Xaaji Maxamed Sheekh Cumar Xaaji Axmed oo ay guddigaasi u xukumeen beertaasi oo ku taala deegaanka Fardaha waxaana arintaas ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro والصلاة والسلام على رسول الحمد لله رب العالمين مهد ما أنت ذي لها بسكلة وإنه مهد نقينا وحنا بدنكم مهد نقينا سو دوينتين ونكسن وحنا بدنكم مهد نقينا لأنه لقى المقلتين وحنا بدنكم مهد نقينا سلا قوان كيقو قاعدين أنت ما بدنكم مهد نقينا وح قوان كينا كلنا وحلي وحي إن أركان بيلك قوية وحي كلنا أنا قاركتان وقب هنا نصارقنا قوان وين كقارني beertan kii lahayn bas kale baa la yiri cabirkeedii weynu haynay cabirkaas laakiin annaga wax noogu dhinaayno inaanu isla soo aragnaano doonino wax baanu soo aragnay waxna idinkaan wali su'aalo noo kildimay safarkaygu halkan qura kuma ekayn ilaa gargaaran soo marwaan dooninay muhiimadu laakiin waxay halkan balankeena aha inaanu idin nimaadno inaanu idin la aragno taliyaasha ciidanka go'aankii aynu soo kala qaadanay waanu siinay way haystaan wixii go'aanka khilaafana waa tan arrinkooda meel isla dhignay go'aankeena hadda inta inoo baahnay inaan soo aragno waxa jira wax la xarful cilla xuruufta marka qawaacidka la dhiganayo xarful cilla waxa la jiro cillad yar geliya go'aankeena in yar baa cillad ku jirto go'aankii mulkiyadii aynu raacnay waxa la yiri dhulkeedii kala barow bar waxa qaatay Suudaamigi annaga soo arkayna kula ciidan parlament waxa la yiri wuxuu galay dhul danguudo ka baxsan cabirkiisii annaga soo arkaysaan waa intii naga dhindinay waxa la yiri dariiqa xooli ka cabaanay ka arooraan ma leh oo waa lagu xiray wadooyinkii baa lagu xiray annaga soo arkayna horta inta naga dhinayd annaga araga nooga baahnay inihina dhanka waan tagnay beerta iyo beerta kale isku xiga in badan oo la mari kara waa u dhaxaysa wajida xaqana waan soo eegi doonaa qodobka saddexaad oo ahaa dhulkii ay jartay duufaantii Suudaamigu ay naga jartay ayuun baan doonayay inaan idinka weydiino kala waxa isaguna halkaas ka hadlay taliyaha saldhigga koowaad ee ciidanka qaranka General Yusuf Iman Diiriye iyo abaanduulaha saldhigga koowaad gaashaanle sare Cabdilaahi Bixi iyo taliyaha guutada 18aad Baashe Guun kitaabkeena in lagu wada qancaa waa muhiim inta wixii ka badan ee soo dhaafa Cabdilaahi Bixi baa ka mas'uul labada reer midnaba ma yihid adigu cid ku baydhaada yaqaan idinkuna anigu hadaan militaryna gacan baan horta hawsha idinka ceel baa la qodayaa iyo ood baa la saarayaa iyo islaam baa soo jeeday waxa soo shaqadiina annagu wixii idinka badan ayaan idinka gacan siinaa markastaba hawlaha inaad idinkuna diyaar u tihiin oo diga fududaataan idinka la idinka raba labada qolana waxaan leeyahay wali abtiyaasha waxaan leeyahay mar hadduu kitaab yimid ha lagu qanco meel loo dhaafaana ma jiro ilaahayna aynu ka cabsano hawshana halka aynu ku afsharan waxani waa dhul waa laga tagayaa ilaahay sida kale uu roobi doona hadduu rabo mar labaad mid labaadna waan ku darayaa dhulkan inagu aynu ku murmayneen daagdaaga ugu murmayno wax ka weyn baa ka soo socda waxa ka weyn aynu u diyaar galayno ka midowno intaan inagu hoos isku eegin aan isku muuqano intaas kaga baxayaan dadkan inala jooga horta dadkii waxba way kala saari waayeen waxna way kala sheegi waayeen wayna kala safteen
kitaabka ilaahay ninka aamin waayo horta isaga aaminsan kolka hore sax xabiib salaad weyn soo nasoobi salqaan wala bixi kan ku dhaartay isaga waxba kama quseeyaan laakiin waa inaad adigu aamintaa kitaabka inaad adigu aaminto haddaad aaminsantahay waa qodob qof islaamka inta wixii ka dambeeya waddanka dawladda jirtay dugaag ma nihin soconaya dugaag soconaya ma nihin dawladda hawlaheeda qabsan doonto wixii inta ka dambeeya weeyaan in hadal kalena kama furno kala dib ku dhaartay 700 mitir wallo talaabsanay halkaas ku dhaartay halkaas inuu taagan talaabsanay inagu halkaas inuu taagan ta kale waxa la kitaabka hal qaato hal lagu qanco hal lagu samro kitaabka wax ka weyn ma jiraan kitaabka ilaahay bas wax ka weyn ma jiraan waxa weeyaan qaad kitaabka ilaahay hadalka joojiya hadalka joojiya sida ku samra assalaamu alaykum warahmatullahi arrinka isaga maanta lagu waxaan ka midaysanay annaga ciidanka militariga halkan taagan channel halkan taagan yahay dawladda waddanka xukunta wixii dib la yimaada gacan biran qabanayna waxa imika lagu dhaartay kitaabka lagu dhaariyay aamini waayay imika xuquuqda haya dawladdu way surreeyeen haddii aan ka tanaasulin way surreeyeen waxay surreeyeen waxaan soo meel dhignay odayaal baan soo meel dhignay odayaashii aan soo meel dhignay goobtay taagan yihiin imika goobta iyagoo inaan yar inuu hadlana maaha halkan ka goolaaftamaya hadlaya haray ugu nabad iyo caana maan arka noocaas ka tanaasul waan leeyahay ka tanaasula annagoo gacanta haysatana ciidanka iyaga militariga iyo ambraan qabanayna dawladda ina kama xoogayna ina kama itaal weyna amniga iyo nabadgelyada hala ilaaliyo wallahi ma kugu bilaahi ba ma kugu tallaahi ba إنه حد كي هيدو حكوا حقي نعم والله با والله وبالله با والله با والله هل كاسو حدود كيف وحا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta dhex joognaa beerta xaaji maxamed sheekh cumar xaaji axmed oo ku taala fardaha halkan oo maanta ballan lagu lahaa iskugu timid dawladda gobolka barasaabka gobolka teebaro jananka ciidamada xeebta yuusuf waxaan ku dhahdaay hawlgelinta maxamed aamiin hawlgelinta gobolka awdal booliska meeyarka degmada lughaya intaba waan mahad celinaynaa shaqaaqa beridhowd halkan ka dhacday ka jawaabisteedii bay dawladdu u timi ciddii qaladka lahaydna qaladkeedii baa u sheegtay ciddii lagu qaldamayna raalligelinteedii bay bixisay sidaa bay ku dhammaatay waxaa halkan ila jooga cuqaashii reerka abakar makaahil dheere بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه halkan maanta waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa dhammaystirkii shaqaaqadii beerta ka dhacday oo ay madaxdii dawladdu timiday oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka jananka xeebta iyo hawlgeliyaha ciidanka booliiska ee gobolka maayirkii lughaya dhammaantood halkan marka ka soo qayb galeen iyo cuqaal fara badan ayaa ka soo qayb galay hambalyo uga diraynaa madaxda sharafta leh ee sida fiican u soo dhamaysay cuqaashaba ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu ka dhigo arrinka arrin waara sidaa darteed halkan waxaan ku duubaynaa oon ogeysiinaynaa muxuu ahaa dadkii muxuu ahaa ehelka u ahaa xaajiga inay beerta arrinkeyga sidaa ku dhammaaday بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa maalin taariikhiya waxa weeye beertii waxaan dhex joognaa meesha la yidhaha farda lagu xidh oo kaynta weyn ee la yidhaahdo quraan jaale beertaas oo uu leeyahay xaaji maxamed sheekh cumar axmed horeyna uu u lahaa ismaaciil guuleed suldaan oo hadda nala jooga nin oday ah oo muctarif ah aad iyo aadna mataqaanaa noo raalli geliyey sidii mataqaa beertaa u iibshay iyo difaaceedii sida uga qayb qaatayba nala jooga iyo cuqaashii beesha abakar makaahil dheere maanta ay bisha 8 bisha maaris ay tahay waxa soo gabagabootay jiitankii hadalka ee intaana daba socday ayaa la soo gabagabeeyey wafdiga uu hogaaminayey gumarnatooraha gobolka awdal ama baro saabka sida loo yaqaano maxamed axmed caalin tiimbaro uu hogaaminayey jananka ciidanka xeebta
iyo howlgelinta booliska gobolka awdal taliyaha ciidanka milatariga ee degmada lughaya iyo maayirkii oo la socday intaa ay isugu yimaadeen iyo cuqaal fara badan ciisahana loo yeedhay 4 dhan markii laga joogsaday xataa dhaar uu ku maray muxuu ahaa ismaaciil guule suldaan beertiisu inta hareeraha ay kaga joogtay sidaa daraadeed aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in hawshii maanta halkaa ku soo gabagabootay ilaahay baa mahadle mar walba